kusoo dhawaada Anas Editor waa anigoo ah Anas maanta waxaan sharxi doonaa film lagu magacaabo Sky High. Filmkan waxaa la sii daayay 2005 daawo oo ila joog. Filmku wuxuu ku furmayaa wiil wuxuu leeyahay laba waalid, labadaas waalid waxay leeyihiin awood u qaas ah oo super power ah. Wiil wuxuu mar walba jecel yahay ama kuriyooda in uu badbaadiyo dunida. Waxaa dhacayso in la soo weeraro caasimadda, laakiin labada waalid oo wiil ayaa badbaadi doono caasimadda. Waxaa soo weerari doono robot aad u weyn. Waxaa jiro iskuulkaas oo ardayda dhigtaan dhammaantood ay leeyihiin super power ama awood, laakiin ardayda iskuulkaas dhigato wuu ku duwan yahay wiil. Sababtoo ah wiil wuxuu leeyahay laba waalid oo leh super power ama awood, laakiin ardayda dhigato iskuulkaas waxay leeyihiin hal waalid oo leh super power ama awood. Wiil iyo saaxiibadiisa Layla waxay filim ka daawanayaan badbaadinta ay soo badbaadiyeen robotka soo weeraray caasimadda. Aabihii iyo hooyadii taliyaha dhalay Wal aabihii ayaa wuxuu soo qaadanaya madaxa robot, kadibna wuxuu u soo qaadanaya xaafadiisa. Wiil iyo Layla waxay soo raacayaan iskuul baska, iskuulkaas oo ku yaalo meel secret ah. Ama wiil waxa laga qadari doonaa dhammaan baska oo soo raacay, sababtoo ah aabihii iyo hooyadii waxay badbaadiyeen caasimadda. Sida caadiga baska wuxuu ku socday wado, laakiin wadada ayaa ahayd mid xiran, kadibna wuxuu ka dhacayaa bridge ama buundo. Ardaydii baska saarneed ayaa waxay dareemayaan cabsi, laakiin baskii ayaa waxa la soo baxaya mucjiso, kaas oo noqonayo duyuurad. Sidoo uu leexanayo ama uu wareegsanayo, markii dambe wuxuu arkayaa iskuulkii qarsoonaa oo secret ka ah. Iskuulka wuxuu ku yaalaa meel secret ah oo dadka badana ogeynin. Ardaydii ayaa dhammaan la fajacayaan iskuulka. Wiil iyo Layla iyo asxaabtooda waxaa la keenay iskuulka. Baskan wuxuu ku soo degtay iskuulkii ku yaalay hawada sare, laakiin ardayda qaarkood ayaa waxay leeyihiin super power. Qaar baa hawada galayo, dulduulayo. Mid kamid ah ayaa wuxuu leeyahay laser indhaha laga tuurayo. Kuwa qaarkoodna waxay leeyihiin awood inay dadka ka dhigaan freeze ama ay barafeeyaanbo. Halkan waxaa joogo arday ciyaarayso ama daansi garanayso. Ardayadan ayaa laakiin waxay awood u leedahay inay isdubligarayso ama isbadiso. Si walba ha noqotay, iskuulka uu ardayda joogo dhammaantood waxay leeyihiin super power ama awood. Ardayda waxaa ku jirta gabar lagu magacaabo Queen waxay leedahay awood ka duwan dhammaan ardayda. Wiil markuu arko Queen wuu la dhacayaa, laakiin waxa arkaysa Layla ayaa ka maseerayso. Isla markaa waxaa la keenayaa meel khaas ah, meesha oo lagu qiimeynayo arday walba awoodiisa. Ardayda kamid ah ayaa koraya maslaxa, kabacdina wuxuu soo bandhigaya awoodiisa. Meesha ayaa lagu siinaya buundadiisa, laakiin waxaa maslaxa soo fuuli doono wiil markuu maslaxa imaado, wiil ma laho wax awood ah, laakiin ma oga macalinka wax qiimeynayo wiil awoodiisa waxay tahay iyo nuucay tahay. Sababtoo ah wiil uu ku cusub yahay iskoolka, aqoon uma laho macalinka. Wiil waxaa lagu soo kordhaynayaa gaari, kadibna iskama difaaci karo oo wax awood ah hadda ma haysto. Macalinkii wuu aamin weynayaa, mar kale ayuu wax u tuurayaa dhinac. Isla markii wiil waxaa loo soo qaadayaa qaybta doctorada nursingka. Wiil waxay u sheegaysaa inay waxba gaarin, laakiin oo lahaynin wax awood ah ama super power ah. Markii iskuulka laga yimid, wiil oo xanaaqsan ayaa wuxuu yimid xaafadda, laakiin aabihiis ayuu wuxuu sheegay asigoo caraysan inuuna haysan wax awood ah. Ardayda iskoolka haystaan awood ama super power. Si walba ha noqotay, aabihii ayaa wuxuu u soo wadayo meel secret ah oo ku kaydsan yihiin robotyo iyo waxyaabo. Wiil aabihii wuxuu haystaa carriage ama garaash lagu xareeyo robotyada. Robotka madaxiisa waxaa ku jiro waxyaabo secret ah, taas oo u sheegayo wiil aabihii in ay yihiin wax secret ah. Wiil wuxuu ku soo noqonayaa mar kale galaaskii. Ardayda qaarkood ayaa waxay halka ku sameynayaan ciyaaro, laakiin wiil ma aha mid ku qanacsan ciyaarahaas dhammaantood. Macalinka meesha jooga ayaa wuxuu u sheegay dhammaantood markay qalin jibiyaan in ay imaan doonaan xafladooda labada super power ee magaalada, waana wiil aabihii iyo hooyadiis. Ardaydii waxay bilaabayaan inay wax ka qoraan ama waxay ka yaqaanaan ka qoraan. Ardaydu waxay soo raacayaan wiil xaafadiisa ayagoo halka ku aqrisanaya duruustooda, laakiin waxa si kadiis u imaanayo wiil aabihii. Waxay la noqonaysaa ayakana mid kadiis ah ama surprise ah. Wiil mar kale ayuu aabihii qabsanaya, wuxuu ku leeyahay maxaa ay qaldan, laakiin wiil aabihii wuxuu sheegay inay waxba ka qaldaneen oo haysto super power ama awood u qaas ah, laakiin oosan ogeyn awoodaas u qaaska ah. Wiil aabihii ayuu la hadlayaa asigoo caraysan, laakiin aabihii ayaa ka xanaaqaya. Wuxuu u sheegayaa mar walba inuu leeyahay awood, awooddaas oo ah mid u qarsan asiga. Wiil wuxuu u sheegayaa awooddaas inuu leeyahay oo isticmaalo, laakiin wiil ma aha mid wax fahmayo. Aabihiina aad ayuu xanaaqayaa. Aabihii wuxuu soo qabsanayaa telefoon sidoo ula hadlo macalinka iskuulka, laakiin telefoonkii wicitaankii oo wacay xanaaq dartiis ayuu telefoonkii sidaas u jajabinaya. Mar kale ayuu wiil u soo celinaya, wuxuuna leeyahay ma haysti wax awood ah ama power ah. Wiil aabihii wuu soo baxayaa, wuxuuna u sheegayaa hooyadii inuu aad mar walba ugu soo celceliyo wiil inuuna haysan wax awood ah, taasna ay ku noqotay mushkilad asiga. Maalintii ku xigtay, kii kaxeynaya gaarigii baska ahaa ee iskuulka ayaa waxaa lagu bilaabayaa foodo, kadibna waxaa laga dafayaa koofidiisa, laakiin asiga wuxuu soo raadsanayaa koofidiisa. Meeshiina waxaa ka bilaabanayso
foodo iyo buuq. Wuxuu gelayaa qaybta lagu cuneeyo. Meeshaas ayaa waxay ka bilaabanayso foodo. Waxaa halkaas joogo wiil lagu magacaabo Warren. Warren wuxuu leeyahay awood asiga qaas u ah. Wuxuuna ka mid yahay ardayda leh super powerka. Laakiin meesha waxaa joogo wiil. Wuxuu u maleynayaa wax foodeynaya inuu yahay wiil. Halkaan wuxuu qabsanayaa wiil. Isla markii wuxuu ku soo tuurayaa wiil dab. Laakiin asiga uu iska difaacay sida uu fakanayo. Ugu dambeyntiisa ugu fakanayo wiil wuxuu ka hoos gelayaa miis hoostiisa ama wiil miiska ku hoos jira ayuu korkiisa ku soo istaagaya. Laakiin ugu dambeyntii wiil wuxuu dhaqanayaa mid kor u qaado oo super powerkiisa la soo baxo. Kabacdina wuxuu ku tuuri doonaa meel. Wiil iyo Warren waxaa loo keeni doonaa qaybta xafiiska dacwada. Kadibna halkaas ayaa waxaa lagu dhihi doonaa labadiina waxaa taadiin dambiilayaal. Laakiin wiil wuxuu dalbanayaa in oo nabad iyo ka shaqeeyo. Wuxuu la saaxiibi doonaa Warren. Wiil wuxuu ku soo noqonayaa xaafadii. Laakiin waxaa xaafadiisa jooga aabiis oo uu sameeyay surprise. Wuxuuna siinayaa hab. Wuxuuna leeyahay waxaa ku siinayaa gift. Waxaana leedahay super power. Waan ku faraxsanahay super powerkaaga. Wiil waxaa lagu soo darayaa galaaska superheroeska asigoo la dhahayo ku soo biir galaaska superheroeska. Isla markuu yimaado wuxuu arkayaa qof dhan oo laga dhigayo baraf. Si kasta ha noqotee wiil waxaa la gaaray qaybta qadada. Qaybtaas oo joogaan arday aad u foodo badan. Laakiin wiil iyo asxaabtiisa Leila ayaa waxay dhahayaan fadhiista meel halkaan ah. Laakiin waxaa joogto gabar iska dhigayso duplicate oo isbadinayso. Kadibna waxay leedahay booskan aniga fadhiyo. Wiil wuxuu weydiisanayaa Leila in uu raacdo maqaayad halkaas ay iskula soo cunteeyaan. Isla markii wuxuu maqlayaa saaxiibkiis Koran oo dhahayo icaabiya. Kadibna wuxuu cararayaa halka iyo Koran halkuu jiray. Waxay ku dheelayeen wiilkan yar. Laakiin wuu caawiyay kadibna wuxuu u sheegay inay kala xidhaan. Waxaa loo qaban doonaa ciyaar ama game. Gamekan ayaa wuxuu yahay gamekii kala saari lahayd dadka. Wiil gameka asiga kuma jiro laakiin waxaa loogu soo dari doonaa qaybta gadaal. Gamekii wuu bilaabday wuuna socdaa gameka. Gamekan ayaa wuxuu yahay mid lagu kala ogaanayo inuu wiil leeyahay awood qaas u ah iyo awood kaleba. Gamekan ayaa waxay haystaan koox. Laakiin wiil iyo asxaabtiisa waxaa lagu bilaabay in mar walba awood ama super power loo adeegsado. Wiil asigoo ciyaarta soo galay ayuu wuxuu iska raadinayaa super power. Dhulka ayuu ku garaacaya feer kadibna wuxuu ogaanayaa inuu super power oo leeyahay. Kadibna wuxuu si dhaqso isku dayayaa in uu duulo. Kadib waxaa lagu soo duurayaa dab. Aaron ayaa ciyaarta ku jiro oo ka soo horjeedo. Ciyaarta waxaa ka dhiman 30 sekin laakiin wuxuu isku dayaa in uu badbaadiyo. Si kasta ha noqotee laakiin ugu dambeyntii wuxuu noqonayaa mid badbaadiyo Aaron. Mid ayaa ku wareegsanayo kadibna wuxuu isku dayaa inuu ku celiyo neef. Uu badbaadinaya ugu dambeyntii saaxiibkiis. Waxa halka ku guuleystay wiil iyo asxaabtiisa. Wiil wuxuu u soo noqonayaa xaafadda hooyadii iyo aabihii. Laakiin guriga waxaa ku sugayo Queen oo ay gabar isku soo barteen iskuulka laakiin leh awood ka duwan awoodaha kale ee meesha ka jiro. Wuxuu arkayaa Queen oo ku jirto kushiinka. Queen ayaa u karisay cashada. Kadib Queen iyo familka waxay meesha ku qaadan doonaan jawi aad u qurux badan. Leila waxay joogtay iyadana markaa maqaaxida ayay ku sugaysaa wiil. Laakiin wiil wuu ka soo daahayaa. Laakiin maqaayadii uma imaan. Laakiin waxaa ka shaqeeya Aaron ayaa u imaanaya kabacdi wuxuu leeyahay ani ayaa ku joogo dhib ma laho. Kabacdina wuxuu ka codsanayaa hal mar inuu ku martiqaado gurigiisa. Laakiin Leila way ka ogolaanaysaa ugu dambeyntii. Waxaa kulmay mar kale wiil iyo Leila. Wiil wuxuu ka codsanayaa inay la dheesho cawada dance. Laakiin Leila ayaa ku qoslayso iyadoo ku dhoola cadeynayso. Laakiin waxay u sheegaysaa inay taas ay sameyn karin. Asiina wuxuu leeyahay waayahay. Ilaa hadda wiil wuxuu ka daba socdaa Leila. Kama harayo ilaa baska oo ka raaco. Wuxuuna u sheegayaa mar walba inuu ka qaldanaayo oo u gambiyay markii maqaaxid. Laakiin wuxuu u sheegayaa Aaron inuu yahay cadowgiisa. Kaas oo mar walba asiga ku karan. Laakiin ugu dambeyntii wuxuu u imaanaysaa Leila. Leila waxay la kulmaysaa Aaron ayaa isla markaas wuxuu ku balaminayaa xafladaas oo ka dhici doonto meel qaas ah. Wiil wuu xanaaqay laakiin wuxuu soo wadanaya xafladii wuxuu u soo wadanaya Queen. Kabacdi waxaa lagu soo kala tagayaa xafladii. Laakiin wiil wuxuu wacayaa Leila sidoo u raali geliyo xafladii wixii ka dhacay. Laakiin ma ka qabanayso taleefanka waana mid mar kasta ku dhageysanaysa taleefanka. Wuxuu imaanayaa wiil xaafadooda. Meesha wuxuu ku arkayaa buug ay ku qoran yahay parentigooda awoodooda iyo taariikhda parentigooda. Wiil wuxuu si jawi degan u aqrinayaa buugii. Laakiin buugii isla markii waa la xadayaa. Isla markii Queen buugii ayay soo xaday. Laakiin waxay isku bedelaysaa mid super power awood leh. Waxayna qabsanaysaa dhammaan iskuulkii hawada sare ku yaal. Iyadoo isticmaalayso qoryo ka samaysan electric kuwaas oo dadka xanuunjinayo. Meeshii ayaa waxaa noqonaysa mid lagu kala cararo. Qof kastoo meeshuu joogo ayuu ka baxsanayaa. Kabacdina wuu ka cararayaa. Wiil ayaa ugu dambeyntii loo sheegaya wax meesha ka dhacay. Leila iyo waxa uu sheegay Aaron iyo asxaabtiisa. Waxa meesha ka baxsanayo dhammaan Leila iyo asxaabteeda. Markay ka baxsadaan Leila iyo asxaabteeda waxa meesha ku soo haraya dadkii lahay awoodda ama super power. Waxaana Queen noqonaysaa laadirada meesha. Waxay gacanta ku dhigaysaa Queen ilmo yar oo awood aad qaas u leh. Queen waxay rabtaa inay awood ku qabsato dhammaan iskuulka ku yaalo hawada dusheeda. Laakiin wiil iyo ciidanka Queen ayaa wuxuu dhaxmaraya dagaal aad u sareeyo. Queen waxay ka dhigaysaa cunuga hubka ay ku dagaalami doonto markuu u yimaado wiil. Sababtoo ah waa isku family. Waxayna ka soo qaadatay familka wiil. Waxaa dhaxmarayo dagaal aad u sareeyo Leila iyo Queen. Dagaalkaas oo ah dagaal sokeeyo oo iskuulka ka dhacayo. Laakiin Leila waxay la soo bixaysaa awood qaas ah. Leila waxay soo bixinaysaa shax ama qariirad taas oo u sheegayso meesha laga weerari karo Queen iyo wax dhan.
badan waxayna u sheegaysaa asxaabteeda qaaska oo awoodda leh. waxay u sheegaysaa hadday baxsadaan dhammaantood inay fakanaynin oo dilayso Queen halkii oo u joogay. waxayna isqabsanayaan Queen ayay wax isla galayaan dagaal aad u sareeyo. Queen waxaa laga soo tuurayaa meel kore waxayna ku dhacaysaa dhulka. Queen iyo ciidankeedu waxay kusoo dhacayaan banaanka iskuulka. Queen ayaa waxay taabanayso remote controlka iskuulka dhan. iskuulku wuxuu bilaabayaa inuu soo dhaco oo ku dhaco dhulka. Will ayaa iskuulkii kabacdi badbaadinayo. Will ayaa ogaanaya inuu maanta leeyahay awood aad u sareyso, awooddaas oo ah awoodda ugu weyn ee ay haystaan ardayda dhan. Will ayaa wuxuu ka badbaadinayo iskuulkii hawada sare ku jira inuu dhulka ku dhaco, kabacdina wuxuu u qaadayaa kor wuxuuna ku celinayaa halkiisa. waxaan maleynayaa inaad ka hesheen filimkan dhammaantiin. intaa filimkan camal ku kulmeyno waxaan kaaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.